ra'iisul wasaaraha qaranka Dr. Abiy Ahmed oo waqti dhaweyd loo doortay jagada ra'iisul wasaaranimada ayaa muddadii yareed uu xilka hayay waxa uu booqasho hawleed ku maray magaalada Jigjiga ee xarunta deegaanka Soomaalida Itoobiya halkaas oo si meeqaam sare loogu soo dhaweeyay intaas kadibna waxa uu ra'iisul wasaaraha iyo wafdigii ballaadhnaa ee uu hogaaminayay ay dib ugu laabteen magaalada Addis Ababa ee xarunta dalka kadibna waxa uu booqasho ku tagay magaalada Ambe ee deegaanka Oromiya intaas kadibna waxa uu u gudbay magaalada Maqale ee xarunta deegaanka Tigray waxaana halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay mas'uuliyiinta deegaanka Tigray odayaal dhaqameedka deegaanka Tigray iyo waliba bulshada ku dhaqan aagaasi soo dhaweyntaasi ballaaran kadibna waxa mas'uuliyiintii iyo bulshadii goobtaasi isugu timid soo hor istaagay ra'iisul wasaaraha qaranka Dr. Abiy Ahmed waxa uu madashii kulankaasi ka soo jeediyay khudbad dhaxalgal ah oo soo jiidatay qulubta dadkii goobtaasi isugu yimid waxaana xusid mudan inuu ra'iisul wasaaruhu khudbadaasi ku soo jeediyay luqadda afka Tigrayga arrintaasina oo sababtay in dadweynuhu sacab iyo damaashaad kala joojin waayaan maadaama uu ra'iisul wasaaruhu ku khudbadaynayay afkoodii hooyo كبرات نعمنجسي العلوات حلفتي كبرات تقادلتين صدرا سبعتن لتكبركم نبرت كتما مغلا diinta islaamka iyo midda kristaankuba waxa ay dalka Itoobiya markii ugu horeysayba ka soo galeen dhanka deegaanka Tigray waxa ayna labadooduba ka aasasmeen Aksum iyo Najash waxa kaloo deegaanka Tigray ka bilaabantay guushii Arwe ee keentay in dhammaanba dadka madowga ahi xornimo ku noolaadaan sidaa darteed bulshada deegaanka Tigray waa kuwa naftooda u huray sidii looga gudbi lahaa marxalado kala duwan isla markaana u dhabar adeegay sidii uu dalkeennu horumar u gaadhi lahaa ee ay dadka madowga ahina xornimo buuxda u heli lahaayeen waxaana ka mid ahaa halgamayaashii guulahaasi horseedka u ahaa Muuse Maarta Haftu Qalabad Hayaalom Birhane Maskal Qashi Gabru Amore Tlahun Gizow iyo geesigii aragtida dheeraa ee Malla Zeenawi iyo wixii la halmaala sidoo kale waxa uu sheegay Dr. Abiy Ahmed in uu deegaanka Tigray yahay halkii ay gabaadka ka dhigteen halgamayaashii iyo siyaasiyiintii kala duwanaa ee uu hadafkoodu ahaa inay dalka isbedel ka dhaliyaan oo ay dimuqraadiyad ka dhaliyaan isla markaana bulshada dalka u horseedaan barwaaqo haddaba isbedelkan siyaasadeed ee dalka ka dhacay oo ku yimid hanaan dimuqraadiyadeed isla markaana si nabada u dhacay ayaa noqday mid taariikhi ah oo sii xoojinaya sharafta iyo karaamada uu dalkeena Itoobiya ku leeyahay dunida inteeda kale ra'iisul wasaarahan hadda la doortay waa mid cilmi iyo karti u leh hogaaminta hanaanka dimuqraadiyadeed ee dalka waxaana khudbadiisii ugu horeysayba ku soo bandhigay hadallo dhaxalgal oo qulubta dadka soo wada jiitay waxaana maragmadoon ah in uu dalku muddo gaaban gudaheeda kaga midho dhalin doono hiigsigiisa dhinaca horumarka